بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni gudbi dareenkaaga caawa waxa inoo marti ah abwaanka caanka ah abwaan Sakariye Barkhad Ibrahim abwaan Sakariye Saryan oo alaaba aad uga barateen suugaan kala duwan sida gabayada geeraarka sirrigashada saarka jiiftooyinka iyo waxyaabaha la halmaala iyo qaybaha kale ee suugaanta kaas oo caawa inala wadaagaya maanso markaas kooban oo ugu magac daray mideeya taas oo insha Allah ka hadli doonta culimada kala duwan ee wadanka iyo bal qof walba aragtida kaga aadan inuu maaragtay fikirkiisa ka dhiibto abwaanka awalan waan soo dhaweynaya soo dhawaabaan bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay walaal Axmed aadna ku salaamaya okay inta ka bacdi waxaan rabaa inaan weydiiyo abwaanka bal asbaabta ku dhalisay inuu markaas ka maansoodo afkaarta culimada ee kala duwan iyo sababta ugu magacaabay maansadiisa mideeya bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkay Axmed aad baan ku salaamaya markii koobaad mar labaadba sidaad ka dhawaajisay caawa waxaan doonayaa in bulshada la wadaago hadii loo idmo maansada mideeya waxay ku dhalatay sanadkan aan ku guda jiro 2019 bishii 8 gudaheedii sababta ugu dhalasay ama asbaabta ugu dhalaysana waxay ahayd waa aragtayna bulshadeena waxa ka dhex taagan ama ka dhex hoogan muddooyinkii u dambeeyay culimadii dalka oo magacyo badan sheegtay manhajna isku khilaafsan kalena maan duwan badanna waxa suugaanta loo curiyaa waxa weeyeen wax bulshada ka dhex taagan saameyn abuura kadib waxay u dhalatay inaan dareenkayga ku aadan manhajka culimada ee kala gaarka inaan ka gudbiyo bulshadana oo bandhigo si ay ugu garnaado aad baad mahadsantahay abwaane aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa bal la socda silsilada waabuwan ku furayo iyo maansada ugu horeysa oo ugu magac daray mideeya maasadana waxay ku bilaabmaysaa sida tan kulay maanta dadkeenu murtidii madaneeyo maskaxdii laga saariye waqti buu malab haayo Soomaalidii mid ahayd muxibo ku lahaaye rag buu maalka dareeriyo mafax u ahaayo in la mooga ma fiicne aan mileelic caawan masanuusha godkiisa maansada ila dhuuxa culimada maskaxdooda miyirkooda ka keenay manhaj la isku khilaafo macnii diintana mooday mid la isoo afaysto anaa ka mudan diinta milladii hore haystiye mala la isku awaaliyo muran diinta u haysta dariiqii midka haya mudanow nabigeenu ku mideeyay dadkiisa macnihii cilmigiisa iyagoon ku mug yeelan kama gaabin xaqiiqda masaladii u horeysay intay soo kala miidhay midba meel ka istaagay mowqifkiisa ku qeexay xaajadoodu murgoontii madaxii isku duubtay maradii weydka ahayd ee ku maamusay rasuulku maciisii asxaabta miyikii laga keeniyay kii magaalo ku raagay mid masaajid ku hoydiya muska kii ku caraaba mid magaalka mushaaxiya kii mirqaansan daroogo mid madaaris dhigaya maxadkii ka masuula mid maxaadiro jeeshiyo mu'adinkii isku sheega inta uu ismaluuga isku soo malayuuqay midba oo magac sheegtay muunadii ka kaxeeyay midba oo madhab gaara moodaya xaqiiqda dadka kii hor yimaadee u miciinsay yidhaahdana manhajkiisa u saaray marinkiisa tusaaya mar subxaanallah weeye waxa maanta dalkeena iyo bulshada ka dhex muuqdee saameynta abuura in la doodsiyo maaho laga meershayn dhahae wuxuu maanku ka maago ama maayad abuura midigtaa gacantaada haddii aad kala maagtood maaraheeda ka weydo inaad meel ka wareegtood marinkii badashaana mid munaasiba weeye hadalkiisa macaan iyo marxabaynta ergoyda iyo maanso loogu qarqaadiyo maamul looga dacwoodaba in la moose kartoodoo lagu tiiriyo meelna waa mid aad u muhiime culimada wadankeena aan midayna dhammaano maatida iyo carruurta mugdiga aynu ka saarno midab loogu hagaagiyo milka aynu u yeelne inta sheekh matalaysa ku madaysan islaamka madhabkana kala gaara xaqa kii ku murtoosay aynu maanta cadaynay timaha kii kala seexshay tumanaya sitaadka kuwa maala lugtooda u socdaalaya meel fog kuwa maatida laayay maleegaya xasuuqa
maradii kuwa fayday mijihii ka xayuubshay ka madluunsan gidaarkee micirtiisa afaysta kii mutaystay xaqiiqda markhaataa laga haane maareeya gartooda muujiyo oo codeeya